Hogan 24 Media ka dhigo wehelkaaga. Salaamullahi calaykum dhammaan asxaabtana daawanaysa wax wanaagsan halkan waa bartaan kulana YouTube-ka Hogan 24 Media. Aniguna waa Cabdulle Macallin Malto. Waxaan ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay wararkii xanta suuqa kala iibsiga kubadda cagta. Qodobada idinku haya waxaa ka mid ah Thiago Silva oo ka gudbay tijaabada caafimaadka Chelsea iyo waqtiga uu soo duulay London oo la xaqiijiyay. Manchester City oo dalabkii ugu weynaa abid ka gudbinaysa Lionel Messi iyo Barcelona oo Liverpool ka heshay beddelka Lionel Messi. Tababaraha cusub ee Barcelona Ronald Koeman oo balaqaad u sameeyay Antonio Griezmann iyo lambarka cusub uu xiran doono. Qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso leh ayaan idinku hayaa barnaamijkeena ee daawasho wacan. Haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka Hogan 24 Media, ha ilmaamin inaad subscribe saartid gambalaalkana furatid si aad u hesho barnaamijyada cusub. Hana ilmaamin inaad la wadaagtid asxaabtaada adigoo share gareynaya muuqaalkan. Mahadsanid. daafaca rugcadaaga ee reer Brazil Thiago Silva ayaa tijaabada caafimaadka u maray kooxda kubadda cagta Chelsea, waxaana kooxda hadda diyaarinaysa soo dhaweyntiisa iyo cidii ka soo qaadi lahayd marka uu ka soo dego garoonka diyaaradaha. kooxda Paris Saint-Germain ayaa xaqiijisay in kabtankooda Thiago Silva oo da'diisu tahay 35 sano jir uu si rasmi ah kaga tagay kooxda. daafaca reer Brazil Thiago Silva ayaa tijaabada caafimaadka ku maray magaalada Milan ee waddanka Talyaaniga, waxaana la xaqiijiyay inuu si rasmi ah u noqon doono ciyaartoy Chelsea ka tirsan maanta oo Jimco ah oo uu duulayo magaalada London. rugcadaaga reer Brazil ayaa 14 maalmood oo karantiil ah ku gali doona waddanka UK sida uu dhigay sharciga xakamaynta coronavirus ee ay dawladdu ku soo rogtay dadka ka imaanaya dalalka qaarkood, laakiin waxa isla markiiba uu saxiixi doonaa heshiis sanad ah oo si buuxda uga mid noqon doono ciyaartoyda Chelsea. sida uu sheegay telefishinka Sky Sports, Silva ayaa waxa uu qalika ku duugi doonaa heshiis 12 bilood ah, waxaana loo raadi doonaa sanad kale oo dheeraad ah oo isagu go'aansan doona haddii uu sii joogayo Stamford Bridge iyo haddii kale. Thiago Silva ayaa naadiga PSG la qaaday 7 horyaal oo Ligue 1 ah muddadii 8 sanadood ahayd ee uu joogay naadiga PSG, waxaana uu raacay koobab kale oo maxalli ah oo tiro badan, inkastoo ay ku fashilmeen inay ku guuleystaan horyaalka Champions League. dhinaca kale kooxda Manchester City ayaa diyaarinayso dalabkii ugu weynaa abid ee koox kubadda cagta ku doonayso ciyaartoy ay la soo saxiixanayso, waxayna qorsheynaysaa inay Barcelona u soo bandhigto 3 xidig oo waaweyn iyo lacag si ay ugu ogolaadaan in Lionel Messi uu yimaado Etihad Stadium. xidigga Lionel Messi ayaa maalintii Talaadada u sheegay kooxdiisa inuu doonayo inuu isaga tago kooxda, waxa uuna sidoo kale raaciyay inay ku fasaxaan si bilaash ah. laakiin kooxda Barcelona ayaa ku adkeysanaysa in qodobka uu ku andacoonay kabtakooda uu dhacay 2 bilood ka hor, haddana aanay ogolaan doonin in xidigga ugu wanaagsan dunida ay si bilaash ah ku sii daayaan. FIFA iyo UEFA ayaa la sheegay inay ka warhayaan xaaladda Barcelona iyo xidiggeeda, laakiin waxay wararku sheegayaan in aanay soo faragelin doonin oo haddii xaaladdu xumaato ay ku kala bixi doonaan maxkamadda waddanka Spain, taa oo kala saari doonta labada dhinac. laacibkan ayay Barcelona ku fasaxi karaysaa inay iibiso oo kaliya haddii aanan looga adkaanin dagaalka sharciga ah, laakiin ka hor ayaa la filayaa in arrintaas xal loo helo oo lagu qanciyo Lionel Messi inuu sii joogo kooxda, isla markaana uu beddelkiisa shaqada ka tago madaxweyne Bartomeu oo la rumaysan yahay inuu dhibaatada isaga horseed u yahay. sida uu qorayo wargeyska Diario Sport ee ka soo baxa waddanka Spain, Manchester City waxay diyaarinaysaa 3 ka mid ah ciyaartoygeeda ugu muhiimsan oo lagu daray lacag 100 milyan oo euro ah inay siiso Barcelona, isla markaana ay kala soo wareegto Lionel Messi. wargeyska waxa uu sheegay in Manchester City ay qorsheynayso inay Barcelona siiso weeraryahanka reer Brazil ee Gabriel Jesus iyo kubad sameeyaha reer Portugal ee Bernardo Silva iyo daafaca reer Spain Eric Garcia ayna u soo raaciso lacag 100 milyan oo euro ah. saddexdan ciyaartoy ee lacagta ay ku darayso Manchester City ayaa waxay rumaysan tahay inay ku dhawaanayaan lacagta lagu burburi karo qadaraaska Lionel Messi oo dhan 700 milyan oo euro. si kastaba ha ahaatee, Lionel Messi ayaa Isniinta ku laaban doona tababarka kooxda Barcelona, isagoona diiday inuu la kulmo madaxweyne Bartomeu, waxaana la eegi doonaa sida ay xaaladiisu ku dambeyso. dhinaca kale wararka ka imaanaya Spain ayaa sheegaya in kooxda Barcelona haatan baa calaamadeysatay beddelka Lionel Messi haddii uu isaga tago kooxda inta lagu guda jiro xagaaga suuqan. xidigga Lionel Messi ayaa ka dalbaday kooxdiisa Barcelona inuu isaga tago xagaaga suuqa kala iibsiga inta lagu guda jiro, kadib markii uu u gudbiyay warqadda bixitaanka maamulka kooxdiisa.
wargeyska Sport ayaa sheegay inay kooxda Barcelona beddelka Lionel Messi u calaamadeysatay xidiga garabka uga ciyaara kooxda Liverpool ee Sadio Mane. Mane ayaa ka mid ah xidigaha ugu fiican horyaalka Premier League, waana xidig orod badan, waxaana uu furo u ahaa ku guuleysigii Liverpool ee koobabka labadii sano ee u dambeysay. isla wargeyskan ayaa sheegay inay kooxda Barcelona Liverpool miiska u saari doonto lacag dhan 130 milyan oo euro si ay u hesho Mane haddii uu Messi ka tago kooxda. dhinaca kale, tababaraha Barcelona Ronald Koeman ayaa u bandhigay Antonio Griezmann inuu door weyn ku yeelanayo Barcelona ka hor inta aysan soo shaac bixin in Lionel Messi uu ka tagay kooxda Barca. xidigan Faransiiska u dhashay oo 29 sano jir ah ayaa ku guuldareystay inuu ku soo bandhigay Camp Nou qaab ciyaareedkii looga bartay markii uu joogay Atletico Madrid, isagoo xagaagii hore ku soo wareegay heshiis dhan 107.6 milyan oo gini. laakiinse Ronald Koeman ayaa ku eedeeyay tababarayaashii hore inay boos qaldan ka ciyaarsiinayeen xidiga Faransiiska u dhashay, wuxuuna doonayaa inuu Griezmann ka dhigto hogaamiyaha cusub ee kooxda Barca. waxaana intaas sii dheer inuu tababaraha reer Holland doonayo inuu xidiga reer Faransa siiyo maaliyadda number 7 oo uu xirnaa Philippe Coutinho, kaasoo doonaya inuu u wareego horyaalka Premier League xagaagan. wargeyska Faransiiska ka soo baxay El Cube ayaa sheegay in Antonio Griezmann uu haatan bawdub dhaxaad u noqon doono kooxda Barcelona. Ronald Koeman ayaa la sheegay inuu ku wargeliyay xidiga ku guuleystay koobka adduunka qorshihiisa xilli ciyaareedka soo socda ka hor inta uusan ku dhawaaqin inuu doonayo Lionel Messi inuu ka tago kooxda. macalinka reer Holland ayaa yiri isagoo ka hadlaya Antonio Griezmann, anigoo ixtiraam muujinaya Antonio Griezmann, waa qasab inuu ka ciyaaro booskiisa, ma ahan wax qariib ah, waa inaad ka ciyaarto booskaaga. tani waa waxa ugu muhiimsan ee uu tababaro samayn karo, inaad ogtahay booska ciyaartoydaada ay ku fiican yihiin. weli daawadayaal waxaad inaga daawanaysaan bartaan ku leenahay YouTube-ka ee Hogan 24 Media. haatanna waxaa soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeena ciyaaraha ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Sky Sport Italia ayaa warinaysa in daafaca kooxda Juventus Leonardo Bonucci uu iska diiday fursad uu wada hadallo ugu furi lahaa kooxda Manchester City. Bonucci oo 33 sano jir ah waxa uu qadaraaskiisa dhacaya ilaa June 2024, laakiin City ayaa doonaysa inay ku darto daafaceeda xidigan khibradda leh. warbixintan ayaa sheegaysa in ciyaaryahanka reer Talyaani uu u sheegay inuu joogayo Juventus, uuna doonayo inuu ka caawiyo macalinka cusub ee Andrea Pirlo kooxda ka dhisan Torino. dhanka kale, wariyaha Gianluca Di Marzio ayaa ku waramaya in kooxda Barcelona ay la xiriirto weeraryahanka Lyon ee Moussa Dembele, iyagoo doonaya xidigan lambarka 9aad, waxayna u doonayaan inay ka dhigaan dooqa labaad haddii ay ku gooldareystaan weeraryahanka Inter Milan ee Lautaro Martinez si ay uga dhigaan beddelka Luis Suarez oo lagu wargeliyay inuu kooxda ka tagi karo. xidiga heer caalami ee dalka Mareykanka ee Weston McGeary ayaa ka degay magaalada Torino. 22 jirkan ayaa la rajeynayaa inuu kooxda Juventus ugu biiro qaab amaah ah oo ay kaga soo qaadanayso kooxda Schalke 04, iyadoo heshiiska amaahda uu sidoo kale ku jiro xulasho ah inay 18 milyan oo geli ku iibsan karto. xidigan qadka dhexe ka ciyaara ayaa u saftay kooxda Schalke 04 ku dhawaad 100 kulan, waxa uu noqon doonaa ciyaaryahankii lixaad oo Mareykan ah ee ka ciyaara horyaalka Talyaaniga Serie A, isagoona 6 ku noqon doona ciyaaryahanada kale ah Alex Lalas, Josep Rossi, Michael Bradley iyo Oguchi Onyewo iyo Josh Perez. dhinaca kale, kooxda Birmingham City ayaa ka dhigtay saxiixeedii saddexaad ee xagaagan Ivan Sanchez. 27 jirkan ayaa u ciyaaray kooxda LG ee reer Spain 37 kulan xilli ciyaareedkii hore, isagoo ka caawiyay inay ku soo laabato horyaalka La Liga. ugu dambeyntiina, xidiga garabka uga ciyaara kooxda Crystal Palace ee Wilfried Zaha ayaa kooxdiisa ku qasbaya inay iibiso. wargeyska The Guardian ayaa qoraya in Wilfried Zaha ay weli ka go'an tahay inuu ka tago kooxda Crystal Palace, iyadoo ay xiisanayaan kooxaha kale ah PSG, Borussia Dortmund iyo Monaco. 27 jirkan ayaa labadii sano u dambeysay ku qasbayay kooxdiisa inay iibiso, mana uusan ku guuleysan midda. Wilfried Zaha oo in ka badan 350 kulan u saftay kooxda Crystal Palace ayaa la filayaa inuu ka hoos maro qiimihiisa 80 milyan oo gini ee kooxda Everton ay ku doonaysa xagaagii hore la soo dhaafay. waxaa inta inoo eeg wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay oo aad kala socoteen barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Hogan 24 Media. waxaan idin soo gudbinay anigoo Cabdulle Macallim Alto, waanigoo idin leh kulanti dambe iyo barnaamijkan lamid.
في أمان الله.